wasiirka diinta iyo awqaafta ay wehelinayaan gudida xabaalaha nasaha hablood ee ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan barigeeda culimaadudiin xildhibaano iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa soo kormeeray xabaalaha nasaha hablood oo hadda buuxsamay isla markaana inta ka banaan ay noqotay dhagax ay adag tahay si loo qodo waxaana halkaasi ay gudidaasi dhulku ka sheegeen inay mamnuuc tahay maanta wixii ka dambeeyay dhulkaasi la isticmaali karo amaba xabaalaha wax lagu qodi karo maadaama aanay jirin dhul wax laga qodo waxay isu yimid halkan gudidii xabaalaha si arintan xabaalaha ay la wareegtay wasaaradda awqaaftu loo cadeeyo in xabaalihii ay buuxsameen oo xabaalaha cusub ee haleeye laga sameeyay waxaanu shacabka u sheegaynaa reer Hargeysa in xabaalahanu ay buuxsameen dhulkan banaana in aan dhul la qodi karo aanu ahayn meydkiina marka halkan la keeno waxa suuragal qof kale oo dhintay oo hore u dhinto lafihiisa ay qalaleen in looga saaro Abdulqaadir Cudi Home Cable TV Hargeysa